wajigii labaad ee dhageysiga dacwad ka dhan ah Andriyo oo loo haysto qalqalgelinta amniga garoonka Aadan Cadde ayaa la isugu yimid hoolka dacwad qaadista maxkamadda gobolka Banaadir. waxaan ka soo gudubnay habraaca 114 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda waxaan u gudbaynaa habraaca 116 ee xeerka habka ciqaabta dhinaca difaaca inay soo bandhigaan maanta doodooda furitaanka iyo cadeymahooda maxkamaddu ay noo furantahay. habraaca ee jeedinta dacwadda waxaa lahaa qareenada u doodaya eedeysanaha. qareenada ayaa ku dooday in sharciyada caalamiga ah ee garoomada uusan ka reebeynin qof ciidan in uu la safray gaabkiisa. halkan aan soo laabano isla hay'adda mataqaana Mareykanka ugu weyn 296 diyaarad ee kontorasha amniga transportationka diyaaradaha kulli adduunka la yiraahdo. halkaas waxaa ku qoran in la ogol yahay in la qaato qasnadaha faaruq ah. in la ogol yahay in la qaato qasnada haddii xabad ku jirto iyo bistoolada haddii xabad ku jirto waxa ku xiraysaa box gaar ahaaneeda ku xiraysaa marka habkaas diyaarad u saaraysaa. laakiin in la diido kuma qorno halkan maxkamadan u soo gudbinayna. waxaa fursad loo siiyay inay difaacaan eedeysanaha maxkamadda hortaagan. waxa ay soo bandhigeen dukumiintiyo iyo sawirro muujinaya shaqada eedeysanaha oo ah shaqo ciidan. maxkamadda ayaa ogolaatay in la soo gabagabeeyo dhageysiga dacwadda oo dhinacyada dacwadda si wadajir ah u weydiisteen maxkamadda. xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo eedeysanaha qodobada sharci oo ay ku soo eedeeyeen. waxaa lagu dooday in sharciyada ay ogol yihiin ay soo bandhigeen oo aysan mamnuuc ahayn, laakiin waxa la rabo waxa weeye qofku sida uu sheegay qareenku in qofku uu sajal ka dhigo wixii soldaadka uu ogeysiiyo oo saas kula maro oo markaas fasaxa uu qaato. waxaa muuqata in ku talagal loo sameeyay waa la qariyay. waxaanu cadaynay in boorsada markhaantiyaasha ay sheegeen in xagga hoose laga geliyo boorsada. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garyaqaan Muuse Macalin Maxamed ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. markii ay dhageysatay doodii xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ee waafaqsan qodobka 114 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay dhageysatay maragyada la hor keenay maxkamadda oo mid loo wareystay, markii ay aragtay marag muujinta la hor keenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah, markii ay dhageysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha, markii ay dhageysatay dooda gabagabada xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay dhageysatay dooda gabagabada ee xafiiska qareenada si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka jamhuuriyadda, maxkamadda waxa uu cadaatay 1 in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku geliyay boorsada si ogaal ah. 2 in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda. sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kale ah 326 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda, iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud, waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $7,000 ah. rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay noo xiran tahay. Andriyo ayaa u dhashay Britain. waxa uu ka tirsanaa shirkadda SKA oo hore u maamuli jirtay garoonka Aadan Cadde ka hor intaan lagu wareejin shirkadda Fafuri ee laga leeyahay waddanka Turkiga.